oksijiinka ay soo saarto warshadan yar waxaa loo qaybiyaa isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho waxaa laga hirgeliyay degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir. oksijiinkan ay soo saarto warshadu waa midka loo xiro dadka naqaska uu ku xirmo ama ku jira xaaladda degdeg ah markii la geeyo isbitaalada bukaanada qaarkood. ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho qaarkood ayaa u yimaada inay baraatika ku sameeyaan wax badan ayna ka faa'iideysteen xilligan. qalabka warshadan yar waxa uu ka kooban yahay midka hawada soo jiida, qalabka hawada nadiifiya, waxaana fursad ay u heleen isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho. Abubakar Maxamed Xasan waa muwaadin Soomaaliyeed oo gudaha dalka wax ku bartay. waxa uu arkay baahida weyn ee dalku u qabo warshad noocan oo kale ah. hadda waxa uu maamulo ka yahay warshadan waxaana uu sharaxay ujeedka ay u aasaasay warshadan sameeyay oksijiinka. oksijiinkan waxa loo aasaasay baahi jirta maxaa la yiraahdaa dalka ka jirta. sababta ugu weyn waxay ahayd si looga maarmo oksijiinkan laga keenayo dibadda, maadaama dalkii dibaddiisii oksijiinkii laga keenayo si looga maarmo waxyaabaha dibadda laga keeno inaan dalkii maxaa la yiraahdaa aan ku sameeyno. aad u jeedaan warshadan maxaa la yiraahdaa baaxadda weyn oo maxaa la yiraahdaa aan halkan ka aasaasnay. Abubakar ayaa sidoo kale sheegay inay diyaariyeen qalab si gaar ah loogu talagalay guryaha oo dadku ay isticmaali karaan, waana oksijiin naqaska ku soo celinaya bini'aadamka marka uu golo xaalad uusan neefsan karin. home oxygen wax la yiraahdo in gurigii oksijiinkii la dhigto. tusaale waxaad soo wajahday xaalad degdeg ah ku soo wajahday, qofkii ama cunugaadii cunug kamid ah dhibaato soo wajahday ama qoyskii qof kamid ah dhibaato soo wajahday. intaad cisbitaalkii u cararayso waa dhibaato. marka si looga hortago in maxaa la yiraahdaa qofkaas bukaankii dhibaatada soo wajahday waa inuu gurigaada kugu diyaarsan yahay. waxaa diyaar u ah tababaro bixinaya maxaa la yiraahdaa qaabkii loo isticmaali lahaa, qaabkii safety-ga loo sameyn lahaa. dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka ku soo kordhinaya hal abuurka waxaad moodaa inay ku soo badanayaan dalka. warshadan sameeyay oksijiinka dad badan kuma oga in Muqdisho laga hirgeliyay. waxaa muhiim ah in dadkaasi ay helaan waqti lagu dhiirigeliyo baahida ay u qabeen. muxtaar Timcado, warbaahinta qaranka, Muqdisho.